cabdishakuur Cidin isagoo ka jawaabaya hadalladaasi Maayar Cidin ayaa waxa kamid ah hadalladiisii ninba waxa laga sheegay malaatan oo kale hore u qabsatay asmanna casa aleelan jid marin abeedin shaydiida ina arijireed iyo niman habartii awrgoynay soo waxaan ilaawo nin xumeemo ogeysiyo maalmahan arijirtii iyo dadkii banyasta ahaa oo ka hadlaya telefishinada kan naaqle dadku wuu maqlay ina Cidinna oo qof la yaqaano oo jamhuuriyadda Soomaaliland maanta laga yaqaano sharafna aan ku lahayn ninka yaqaana in badan baan u dulqaatay wiilka sidaan u aqaan ninka u yaqaanana waa u cudur daaraya waayo waa nin waalan oo reer wada waalan ka soo jeeda inanba waxay ku heestay hal bakhtiday baraan qalay caana baqayna baraan dhamay biyo diidiguma jiro aan la boodo boojada dadkaan iga qalmin aanaan isku mid ahayn aqoon aanaan isku mid ahayn dib jirka ahaa inaan maanta la qasto qurinkooda oo wasay u hadlayaan u hadlo waxaan u maleynayaa waajibaabay ku tahay berberiya burco ma laba meelood la isberber eriyaabaa 1 kiiloomitir oo isku yaro 4500 qof u soo hoyato tuulooyinka burco aan xukumo mid kamida baad la datahay oo la dal tahay waxaad ku faanaysaa ma 1 kiiloomitir iyo barbaad mas'uul ka tahay oo qaranka hantidii ka dhaxaysana in gaar lagugu qariyo 10% inta gaar lagugu qariyay oran maayo qabyaalad baa marxuumkii kuugu qariyay aqoon halka lagu galiyay yaad maanta leedahay waxay 1 kiiloomitir 0.5 square berberi way oo waliba aan cidiba ku jirin cidla 4500 markay ugu badan habeenkii u soo hoyto waxaad samayn lahayd 500 oo kun oo qof aad u taliso magaalada u soo hoyto laakiin ma ruuxu sheegay inuu dad ku soo kicisay oo bulshadii aad ku kicinayso gobolka Togdheer isaga arinta ka war de qofku hadaan aqoon lahayn jaahil yahay aan waxba kala garan isagoo dugsi dhexe dhamaynin ba magaalada laga qaxay waa dhagooli waxa aan ka hadlaynaa waa qodob sharci ah waa 12.5% oo ummaddu wada leedahay oo la qaybiyo iyo 10% oo dekada iyo kastamadii hama ka soo xarooda oo ummaddu wada leedahay oo la kala badsado la kala bursaday oo aan leenahay wartaana ha lagu soo daratan oo 12.5% iyo 10% 22.5% ummadda reer Soomaaliland loo qaybiyo idaacadahan kaga hadalay madaxweynahan u sheegnay golayaasha qarankan u sheegnay waa qodob sharci ah wixii laga yeelana waan ku go'naa arrinkaasina maanta wuxuu hor yaala golaha wakiilada ayuu hor yaala wixii halka ka soo baxana waan ku go'naa anigu degmo aan u taliyo oo dadkaan isku wado dadku isugu kaymid yihiin ayaan madax ka meesha aad joogtaa waa berbera noocaad uga shaqeysay saad uga shaqeyso reer Soomaaliland way ka waraya cadaalad darrada iyo qaraabo kiilka iyo boobka aad magaalada ku hayso haddaad wax garanayso ilaahay gurigaagu ka muujiyay waad ku cibro qaadan lahayd maayarka magaalada Burco Maxamed Muraad ayaa ku tilmaamay maayarka degmada Berbera Cabdishakuur Cidin inuu sidoo kale yahay nin ku abaalka daray barasaabkiisii hore ee gobolka Saaxil Master Ramaax isagoo maayarka degmada Berbera maalinimadii shalay isagana dhaliil u soo jeediyay waxaana kamid ah hadaladii maayar Muraad sida tan horta waa abaalaawe waa beenaale waa waxa waanan aan ka hadlayay aan sheegay abaalaawe wuxuu ku yahay ina cali haysta waa ninkii xilkiisa ku waayay ee kayntu si qabyaalada u soo kaxaysay maayarka ka dhigay ee in reerkooda intu meel ugu xareeyay faraha meel madow cagaha iyo gacmaha loo taagay ee leeyahay waa maayar ee loo dulqaatay dawladdu loo dulqaatay isku qiimo ma nihin aniga burco dhan bay doortay 20 xildhibaan ba halka daahir yaa shamis ayaa gacmaha lay taagay anagu isku qiimo ma nihin kii
sidaa u galay shaqadiisa ku waayna telefishinadu ka caayaya 24 saacadood waa bilaa abaal xadibigii xareedii dooxadu u buuxday ee danaaniye ciyay isagiyo dibiradii duulduulka karantiya darantiya jidhaamaha dareenkiisu kama foga xoolahan qaranku leeyahay ee uu sida khaldan u maamulay ayaa hadallada noocan ka keenay dhaliishan uu maayirka magaalada Burco u soo jeediyay Cabdishakuur Cidin ayaa imanaysa kadib markii uu maalinimadii shalay warbaahinta madaxa bannaan ka soo dhaliilay maayirka magaalada Berbera Cabdishakuur Cidin Maxamed Xasan Diiriye Maxamed Jookar telefishinka caalamiga